على سيدنا محمد هبeen wanaagsan waxaan halkan u soo istaagay anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska taliyaha ciidanka booliiska inaan warbixin idinka siiyo dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada abaaro 7:20 ama halkii saac 7:20 ama 13:20 markii la yiraahdo waxa ka dhacay laba qarax oo isxiga magaalada Xamar kan koowaad oo ka dhacay taalada sayidka agaarkeeda meesha la yiraahdo masaajidka ka soo horjeeda shirkadda Haas waxa ku dhintay 9 qof waxa ku dhaawacmay 25 qof qaraxa labaad ayaa wuxuu ka dhacay agaarka Hotel Afrique gaar ahaan meel u dhow barta controlka ee wadada airportka aada waxa ku dhintay ninkii gaarigooda qaraxa ah dhagraqabihii iyo kii la socday oo ku dhaawacmay oo ciidanka booliiska hadda ay gacanta ku hayaan labada gaari ee qaraxa siday waxa ku raad joogay labadaba ciidanka booliiska mar walba iyagoo fiirsanaya fursad ay ku joojiyaan mid waxa loogu yimid barxadda sayidka ayaa xabadaha lagula bilaabay laabadku ku galay halkaas ku qarxay kan labaadna sidii loo waday isagana waxa ku qarxay meesha hadaan idin soo sheegay biyo-degeenka wadada airportka qaraxdaha sidoo kaleeto waxay geysteen khasaare waxay u geysteen baac mushtarki shaqeynayay waxay u geysteen khasaare dhismayaashii meeshaas shacabka ay lahaayeen haddaba shacabka Soomaaliyeed gaar dhammaan ahaanba caam ahaanba waxaan ka codsanaynaa oo ciidanka booliiska ka codsanaya habeenay maalinba taagan in ay amnigooda wax ku darsadaan waxaan uga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ee ciidankan la hayaan qarkii uu soo talaabay ninkii ugu horreeyay soo sheegay nin shacab oo ahaa waxaan kala ku wargelinaynaa shacabka in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlayna ay raacaan oo ah kiraynta guryaha inaana gurigooda ka kiraynin qof al-shabaab ama qof argixisa dalkan wuxuu ku jiraa dagaal aan u aaba yeelayn maatada ummadda Soomaaliyeed hantida ummadda Soomaaliyeed cidna aan ka naxaynin oo ay tahay muqaddas qof kasta muwaadin oo Soomaali oo damiir leh inuu kaalintiisa ka qaato oo soo sheegay meesha wax ka jiraan waalidiinta aabbayaasha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa in guryahooda aan ku haysanin qof al-shabaab haddii shaki ka galo ilmahooda xitaa inay soo sheegaan way dhib ku geysanaya ka badan haddii ay qariyaan waxaan shaki aan ku jirin inay sharciga jabinayaan dalka inoo yaala inay laftigooda qayb ka noqonayaan dambigaas la galay in ka mid noqonayaan inta markaan kusoo gabagabeeyo waxaan idinla wadaagaynaa oo kaleeto waxa waaye digniinta noocaasa oo leena dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba amnigooda wax ku darsadaan mar labaadna aan ku celinayo guryaha la kareynaa in laga taxadiro ilmaha guryaha lagu haysto in hoos loo fiiriyo ilmaha inuu yahay ilmo saalaxa oo aan la tashkiilin iyo inuu yahay ilmo tashkiilsan haddii noqoto ilmaha in la soo tashkiilay shak hadduu ka galo soo sheeg waa kula garabgalaynaa waa ku gacan qabanaynaa waa fiirinayna xaaladaas waxaan kala qaban karnaa anaguna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Ama santiin.